بنا وفي كفنا شعلة من علوم توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا dimuqraadiyada habka ay fahamsan yihiin iyo xaqiiqadeeda way kala duwan yihiin waxa weeyaan wax allaale wixii yimaado oo taxliil iyo taxriim ah waxaa leeyahay barlamaanka hala geeyo barlamaankii waxaa laga yaabaa wuxuusan ilaahay ogolayn inuu micnaha yidhaahdo waxaan waa bannaan yihiin wuxuu ilaahay amrayna inuu yidhahdo waxaan waa mamnuuc ma bannaano taas macnaheedu waxay tahay waa sidii xeerkii oo kale markii wax allaale wixii anaga naga dhexdhacaba aan idhaahdo maxaa noo xeer ahaa jiray ay tana lamid tahay waxaan calaa sabiil misaal kuga siinayaa laba gabdho oo muslimaad ah oo faransiiska joogay markay soo xijaabteen dowladii faransiiska ahay madaxa isla gashay dantii waxay ku qasabtay wasiirka arrimaha gudaha inuu barlamaanka geeyo markaa la sharciyeeyo la yidhaahdo wax allaale wixii micnaha anaga nidaamkeena iyo nolosheena khilaafsan yeeli mayno waxa weeyaan barlamaankiyaa diiday oo xijaab lama qaadan karo marka waxa weeyaan dimuqraadiya macnaheedu waxay kusoo dhammaanaysaa taxliil iyo taxriim waxaana waa xaaraam asaa dhahayo waxaana waa xalaal marka ma waxaad ogaan kartaa ilaahay waxaan ahayn ma waxalili karo mase bani aadam baa waxalili karo nusuusta sharcigaan bandhigayna waxay ka tiraa baan arkayna waxaad ogaataa marka ugu horeyso waxaan dimuqraadiya la yidhaahdo waa reer galbeedka diintooda waay horta xaqiiqa ahaantaas uu ogow dimuqraadiya haddii la yidhahdo macnaheedana waan kuu sheegi doonaa xukmu shacbi bishacbi weeyaane shacbigo isxukumo oo waxna iska xalilo waxna iska xarimo dimuqraadiya taasaa la yidhahda marka waana diin oo lagu dhaqmo taas weeyaan walidaalika reer galbeedka markay diinta ilaahay u soo dejiyey oo ambiyaa bani israa'iil oo dhan ilaahay ugu soo dhiibay ay bedeleen oo ay taxriifiyeen yaa waxay samaysteen nidaam la yidhahdo nidaam dimuqraadi ay samaysteen nidaamkaas dimuqraadiga waxa weeyaan wuxuu bedel ka yahay diinta ilaahay uu soo dejiyey oo dhan bay bedel ka dhigteen waa nolosha iyo caqiidada iyo dhaqanka iyo akhlaaqda waxa lagu hagayo waa dimuqraadiyada waa nidaamkooda ayaga ay samaysteen wabitaali marka arrintaas ay dhacday waxay noqotay waa cibaado walidaalika waxaad ku dareemaysaa ninka saxaabiga oo Cadi ibn Xaatim la yiraahdo nin Kiristaan buu ahay nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam uu islaamku soo galay markaas wuxuu maqlay nabiga akhrinayo ittakhaduu ahbaarahum wa rubanahum arbaaban min duunillah waxay ka yeesteen dadkooda ahbaarta oo caalimiinta iyo dadkooda rubaaniinta oo cibaadada u go'ay ilaahyaal bay ka yeesteen aayadii saas asoo nabiga akhrinayo uu maqlay markaasuu yiri ilaahay rasuulkiisiyo annaga ahbaarta iyo rubaanka ma caabudno aayadina waxay leedahay waad caabudiina siday arrintaas ku tahay ma aanan caabudi jirin buu markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri miyaysan ahayn waxay idin xalilaan miyaydan xalilo jirin waxay idinka xarimaana miyaydan iska xarimi jirin markaasuu ninka Cadi ibn Xaatim wuxuu yiri nacam ilaahay rasuul saas waa jirtaa nabigu wuxuu yiri fatilka cibaadatuhum hadday bad tahayba waxay idinka xarimaana idinka xaraam tahay waxay idin xalilaana idin xalaal tahay macnaheedu ilaah baad ka dhigateen waad caabudeenoo ilaahnimadeedu macnaheedu waxay tahay ilaahay wixii laga maqlo oo laga qaato cibaadadii awaamirtii ilaah sidaasuu ku yahay marka cid kastoo amarkii ka qaadatid oo wuxuu ku yidhaahna aada fulisid wuxuu kaa reebana aad ka reebtoonaatid ilaah baad ka dhigatay marka dimuqraadiyada macnaheedu waxa weeyaan sida hadda noo imaan doonta iyo tilmaamyaalkeeda waxay tahay in dadkii ay dhaqan ka dhigtaan ayada ay isku xarimaan waxay isugu xarimayaan ayada ay wax isugu xalilaan sidaas bay tahay dimuqraadiya haddii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam Cadi ibn Xaatim uu ka diiday inay arrintaas jirin yaa annagana waxaan leenahay wixii dimuqraadiya lagu magacaabo dhan oo taxliil iyo taxriim ay ku jiraan waxa weeyaan waa cibaado waana diin marka inay diin tahay haddana waxaa kugu daliile waxay xaawilayaan dadkaas ayaga ah in ummadda ayaga ka soo haray oo dhan mabda'ooda dimuqraadi in la marsiyo hadda waxaanu ognahay duwal badan oo jirto in weer lagu qaadayo karaamadoodii awoodoodii jiritaankoodii in inta weer lagu qaada laleeyahay dimuqraadi bay dabaqi waayeen
xoog baan annaga ku galsiinayna aanu ognahay hadeertaan inuu maraykanka mashruuca u wato u yahay in dimuquraadiyadii ay tahay in laga dhaadhiciyo sharqul awsad iyo ummadda islaamka oo dhan ah maxaa weeyaan liannahu maraykanka wuxuu arkaa dimuquraadiyada waa diintu asiga caabudayay diintaasna waxay waajib ku tahay inuu gaarsiiyo ummadda maadaama diin macnihi ay tahay wixii lagu dhaqmo xalaal iyo xaaraamba kala ah haddayba saas tahay ayagana ilaahay diinta uu soo dejiye ay fogeeyeen ay midaan bedel qaateen diin bay u tahay waxaa waajibku ah diintaas inay ummadda gaarsiiyaan ciddii ka hor timaadana awoodda loo isticmaalo sidaasay macnaha dimuquraadiyada ay u tahay waxaanan kugu sheegayaa ilaahay kitaabkiisa asdaqu lqaa'iliin weeyaan ilaahay wuxuu leeyahy walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum yahuud iyo nasaara maanta yay yihiin reer galbeedka o dhan yahuud iyo nasaara u qaybsamaan weliba kiristaanay u badan yihiin ilaahay wuxuu noo leeyahay kitaabkiisa nagu leeyahay yahuud iyo nasaara raalli idinka noqon maayaan xataa tattabica millatahum diintooda intaad ka raacdaan hadda waxaanu ognahay diin ay dad ugu yeeraan ma haystaan oo ama nabiyullaahi ciisa uu la yimid ama nebi muuse uu la yimid waa horebay u taxriifiyeen horebay u bedeleen laakiin maanta diinta dadka ay ugu yeeraya waxa weya waxa lagu magacaabo dimuquraadiyada weya taas baa waxay leeyihin waa ummaddii in la soo geliyaa markaasaa ilahi wuxuu iri qul ina huda allahi huwa alhuda walain itabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaa'aka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir marka waxaa diidaya ilaahay wuxuu diidaya in diinta islaamka wax ka aan ahayn in la qaataahu waxa weeyaan yahuud iyo kiristaan oo la raaca weeyaan markaasaa ilahi nabi maxamed wuxuu ku yiri qul ina huda allahi huwa alhuda hanuunka ilaahay waa hanuunka ilaahay oo waa maxay diinta islaamka ayaa hanuun ah markaasaa nabi maxamed u yiri walain itabacta ahwaahum wax xumay samaysteen oy nidaam iyo diin ay ku magacaabayaan haddii aad diintaas ku raacdid markuu hanuunkan ku yimid kadib oo qur'aankan ka gadaalo ilahi wuxuu leeyahy maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir alla kuu gargaarana heli maysid alla ku xariiriyo heli maysid waadna ku baaba'aysaa marka waxa weeyaan ninkii diinta islaamka waxaan ahayn hanuun ka raadiyo waa soo dhahay diinta ilaahay waa igu filnaan waysay dimuquraadiyadii baan ugu raadinayaa hanuun iyo toosnaan macnihii saasay noqonaysa ayb waxaa isweydiin leh waxaanu ognahay maraykanka iyo atbaacdiisa reer galbeedka oo dhan waxay balle naftooda ku qaadeen inay umanta islaamka calaa wajhi lkhusuus inay u diidaan shareecadooda islaamka inay isku xukumaan in ay ogolaadaan inay diintoodii ay ku dhaqmaan ma ogolo bal waxay samaynayaan islaamka sumcad darrad iyo tashwiihu suurati almuslimiin inay samaynayaan baan ognahay marka waxaa maraykan dhib ku haayo ummadan soomaali oo kale in islaamkooda isku xukunto maraykanka wuxuu ka dhibaa maxay tahay bal isweydii maanta waxaanu ognahay ninkii islaam umaadinayo amaan isku dabaqna dhahayo irhaab baa loo arkaya waa in loo dagaalamaa ummadda iyo horumarkeedu kasoo horjeedaa sidaasaa loo adeegsanaya laakiin xaqiiqada waxay tahay waa in isweydiina xaqiiqada waxay tahay diintii maraykanka oo watay baad adiga diidan tahay marka ugu horeyso midda labaad haddii islaamkii dhabtiisa la helo oy ummadda islaamka sida uu yahay isugu xukunto waxaa soo baxaya ceebta dimuquraadiyada iyo reer galbeedka waxay nidaam u yaqaaneen cuyuubtooda dhamaa soo baxay midda saddexaad oo waxayna ogolayne haddii ummaddii islaamka ahi looga tago inay shareecada islaamka ay isku xukumaan macnaheedu waxa weeyaan xornimo dhab a markaasay gaareen maraykanka wuxuu rabaa ummad asiga horyaalo u yahay ummad asiga tusaale u yahay ummad asiga ku daba faylsan khayraadkoodana u qaato wuxuu u meeriyana ka ogolaado laakiin haddii ummaddii ilaahay kitaabkiisa lagu dhaqmo ilaahay bay ku xirnaanayaan marna ilaahay amar ka qaatayna nin gaalo asiga ka soo haray wax ka qaadan maayo in tasarufaadkiisa iyo arrintiisa u gaarka inuu soo dhexgalo ilaahay subxaanahu watacaala mana ogolo mu'minkii ilaahay ka tala qaatayna ma ogolo in cid kale ay tasarufkiisa ay la wadaagto ilaahay subxaanahu watacaala marka arrintaas oo dhan baa waxaa keenayso inuusan maraykanka diidin inay buudiyiinta buudnimadooda isku xukumaan hunduuska hunduusnimadooda isku xukumaan qolo kastaba diin la-aantooda isku xukunta laakiin islaamka maya liannahu islaamka waa diinta xaqa ah oo fitratulislaam qaabilayso ummaddii hadday aragto asoo xaqiiqadiisa laga dabaqayne
dhib waxay ku tahay wax allaale wixii nidaam jiro o dhan inay baaba-aanay ku qasban yihiin. marka sidaa daraaddeed maraykanka waxa weeyaan iyo wixii lahal aho reer galbeedka oo dhan ah waxaa ballan ka ah islaamka wanaagiisa sousan u muuqanin waa inaan ku cariirinaa dimuqraadiyada, waa inaan sanka aan ka gelinaa, waa inaan ummadda aan ka dhaadhicinaa waxa kaloo jiroo dhan baatil inay yihiin. waxa keliya oo horumar lagu gaari karo ay bani aadamka ay ku sinaan karaan, ay ku wada dhaqmi karaan, ay ku noolaan karaan, ay walaalo ku noqon karaan waa dimuqraadiya. sidaasay leeyihin. taasna waxa weeyaan waa sida ayaga ay doonayaan bay kaa yeelayaan. waxaad ogaataa nin diintiisa iska taxriifiyey ee baabi'iyey ambiyadii dilay inuusan kuu ogolaanaynin adiga ambiyadii dhaxalkoodii inaad qaadato kuma ogolaanayaan. walidaalika ilaahi subxaanahu watacaala soo noowaana cilna wuxuu leeyahay wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a. yani waxay jeclaadeen siday ayaga u gaaloobeen inaad adinkana u gaalowdaan bay jeclaadeen. sidaasuu ilaahay leeyahay wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an, gaalnimada aad ku ekaataan. falaa tattakiduu minhum ilaahay uu leeyahay awliyaa, weli ha ka yeeshayna kuwaasoo kuwii la xariiriyo oo dan idinka dhexayso maslaxad idinka dhexayso ha ka yeelanina. ilaahay subxaanahu watacaala sidaasuuna leeyahay. ayib markaa waxaa laga yaabaa inay dad ay leeyihiin war annaga haddaan muslimiin aan nahay miyayna dhici karin waxaan dimuqraadiyada sidaad sheegtay waa sax waana noo imaan doonaaye islaamka iyo dimuqraadiyada waxay isku diidan yihiin waan kuu sheegi doonaaye laakiin haddii ay dhacdo inaan dimuqraadiyada aan qaadano meesha ay ku wanaagsan tahayna aan ka qaadano, meesha ay ku xun tahayna aan iska tuurno, oo wixii islaamkeennina waafaqsanna aan qaadano, wixii islaamkeenna kasoo horjeedana aan diidno maceeb baan ku dhacnay. taa waxaan kaa leeyahay marka ugu horeyso waxa aad u cajiib leh dadka dimuqraadiyada dhigtay oo ummadda ku hogaaminaya inay ku qasbaan doonaya horta kaa yeeli maayaan. dimuqraadiyadaas aad samaysateen waxaan rabaana ka qaadanaya, wixii rabana waan ka tegaya. cid kaa yeelaysa ma ahano waxaa lagu leeyahay ma adiga xumo afriqiyaan ah oo miskiin aba annaga nidaamkii horumarka ahoo mutakaamilka ah oo dhammaystirnaay oon annaga dhigana miyaad leedahay kana waa xun yahay kana waasan yahay. kaas cid kaa yeelaysa martaba ma laha. awalba waxa weeyaan dadkan muslimiinta iyo horyaalka u ah oo dimuqraadiyaanku dabaqayna dhahay waxay u yeelayaan qanaaca iyo kalsooni ma aha, laakiin reer galbeedka ugu daba dhawaasho iyo tuugmasho wax uga helid waayo. marka haddayba arrinta ulajeedada ay ahayd raalligareen reer galbeedka lagu raalligaraynayo ma dhihi karaysid markaa dimuqraadiyada waxna waan ka qaadanaya waxna waan ka diidaya ma dhihi karaysid. oo saa haddaad tiraado aygana kaa yeeli maayaan adigana waxa weeyaan wax ay kugu taraysaa aanan jirin waa qayb. midda kale waxaad naftaada raalli aadan ku ahayn dad kale ha u samayn. ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa asigaan inuu soo dejiyey ma laga yeelaa haddaan qof gaal ah hadduu yidhaha islaamkaan soo gelaya laakiin wixii ani iiga fiican oo islaamkaiga cajibgelinayna waa ka qaadanaya, wixii ani cajibgelinayna waan ka tegay annaga cid ma ka yeelayna. jawaabtu waxa weeyaan waa maya. sidaa daraaddeeda reer bani israa'iil qayb ahaan kuwa yahuudda ah yaa ilaahay wuxuu ku ceebeeyey afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati addunya wayowma alqiyaamati yuradduuna ilaa ashaddi alcadaabi wama allahu bigaafilin cama tacmaluun. waxa weeyaan markay yidhaahdeen nebi moxamed ha loo tago haddii waxa aniga aan idiin amarnay idiin sheegana ka qaata in uutiitum haada fakhuduuhu wain lam tu'tahu faxdaruu. saasay kusoo dardaarmeen. marka diinta ay u yimaadaan waxay yidhahdeen haddii nebi moxamed intaasaad ma amartid waan qaadanayna, intaan haddaad noo diidinna oo kaa yeeli mayno. markaasaa ilaahay wuxuu yidhi ma waxaasaa iimaan iyo islaam la yidhahdo afatu'minuuna bibacdi alkitaabi, kitaabkii ilaahay qaarkiisa maad rumaynaysiin watakfuruuna bibacdin qaarka kalena ma ku kufrinaysiin. marka saas hadday dhacdo maxaa la samaynaya? ilah wuxuu ihi famaa jazaau man yafcalu dalik, ninkaas sidaa samaynaya abaalmarintiisa waxa weeyaan famaa jazaau man yafcalu dalika ilaa khizyun fi lxayaati addunya, adduunyada hoog iyo baaba' buu astaahilaa yaa ku dhacay. wa yowma alqiyaamati yuradduuna ilaa ashaddi alcadaabi, qiyaamada markii la tagana cadaabka kiisa ugu weyn waxaad moodaa inuu ka cadaabnimo badan yahay. ninka islaamka wada diiday oo dhan waxaa ka cadaab mudan ninka qaarna ka qaatay qaarna diiday, liannahu ninkaas ogaal buu wuxuu u diiday baa laleeyahay.
marka ilaahay wuxuu leeyahy wama allahu bigaafilin cama tacmaluuna ilaahayna ma ilaysana waxaad samaynaysaan marka maadaama diinta islaamka aan laga ogolayn inuu qofkii yidhaahdo aniga qaybtaana waan qaadanaya qaybtaana waan diidaya macnaheedu waxay tahay adiga ilaahnimo sheegto waxaad leedahay ilaahay baan usaxaya waxaana waa ku quman yahay ilaahay waxaana kuma qunno macnihii saasay ka mid tahay marka taas haddayna dhacaynin oonan la ogolayn min diin watoo dhanna sidaasaysan u ogolayn wixiis in la qaybiyo ayib waxaa su-aala marka haddii adiga aada aaminsan tahay sida aan kuu sheegi doono dimuqraadiyada waana meelna way ku xun tahay baad leedahay meelna way ku fiican tahay marka haddii ay meelba ku xun tahay ay meelna ku fiican tahay maan iska wada tuurno waxaan haysanaa wax meel ku xunba aanan lahayn oo nidaam mutakaamil ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey maadaama anoo bani aadama waxaan ogaaday meeshaana inay ku xun yihiin meeshaana ay ku fiican yihiin calaa sabiili misaal hadda waxaan kuga siinaya dimuqraadiyada haddii shacbiga intay kulmaan barlamaankii la kulmo oo la yiraahdo zinadii waa banaan tahay gabadhii rabta ha iska zinaysato labadii ninoo doonaya ha isguursadaano labadii naag ha isguursato haddii nidaamkii barlamaankii uu waafaqo reer dimuqraadiya dadka ku dabaqmaya sharci bay u noqonaysaa oo biri maxaakimtia waxaa laisugu nikaaxinaya laba nin baa laisku nikaaxinaya gabdhihii waxay furanayaan gurya oo dicaaye iyo dicaara iyo zine iyo fuxshi ay ku sameeyaan ay samaysanayaan adiga markaan ku iraado war dimuqraadiyadii sidaasayna gaarsiinaysaan iska dhaafno waxaad leedahay war dimuqraadiyadaas annaga ma ogolin oo zinada banaynayso oo rag in isguursata banaynayso annaga ma ogolin waxaan ku leenahay war waxaan waa dimuqraadiya ama ka wada tag ama iska wada qaado labadaas mid weeyaan mooye inaad tiraahdo wixii waan ka zinaysana qaarna waan ka qaadanaya qaarna waan ka tegaya waxa weeyaan cidkaa yeelaysa oo ma jirto marka sidaa daraaddeed yaan waxaan leenahay horta marka ugu horeyso dimuqraadiyada intaanan xaqiiqada idii islaamka udhexaysa aanan gaarin yay hordhac u tahay midda kale intaanan waxaan kuu sheegaya markii aad tiraahdo dimuqraadiyan qaadanaya macnaheedu waxa weeyaan xaqiiqa ahaan waxay tahay annaga haddaan nahay muslimiin mashruuc oo dhammaystiran oo laysku xukmi karo oo caadilnimo lagu gaari karo oo barwaaqo lagu gaari karo ummadda ay ku dhaqmi karta ma qabno macnaheedu sidaas weeyaan bal u fiirso marka tiraadid annaga ummadeenna hadeertaan horumaraan gaarsiinaynaa dimuqraadiyaan isku dabaqaynaa markaad tiraadid macnihii waxay ka dhigan tahay inaad tiraadid annaga ma haysana haddii aan nahay muslimiin laga soo bilaabo nabi moxamed calayhi salaatu wassalaam ilaa yowmina haadaa nidaam lasaga daydo oo caadilnimo noo xaqiijiyo oo wanaag laysugu xukumo ummadana horumarsi gaarsiinayo wanaagna lagu wada noolaa kara ma qabno sidaa daraaddeeda waxaan raadinaynaa nidaam dimuqraadi la yidhaahdo oo ummadda lagu dabaqayo oo markaa horumar aan ku gaarayno waxay cay u tahay ama meel ka dhaca u tahay islaamkii annaga aan sheegaynay meel ka dhac u tahay waxayna ugu tahay bal hadda u fiirso aayaadka qur'aankan qaybkaaga sheegaya ilaahay wuxuu leeyahay ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankan asiga oo ilaahay noo soo dejiyey yahdii lilatii hiya aqwam uu leeyahy jidka ugu toosnaanshada badanne yuu nagu hanuuninayaa oo xaggii horumarkii xaggii nabadgelyadii xaggii caqiidadii xaggii dhaqankii xaggii akhlaaqdii xaggii isjacaylkii xaggii iithaarkii kulli ay ku dhammaystiran tahay lilatii hiya axsan lilatii hiya aqwam sidaas baa shareecada islaamka ilaahay subxaanahu watacaala ou noogu leeyahay adigana waxaad leedahay war annaga dimuqraadiyaan raadsanaynaa macnihii waxa weeyaan kitaabkaas asiga ee markaan raadinay wixii aan ka rabnay waa ka waynaye dadkan reer galbeedka waxay horumar ku gaareen bal aan wax ka wardoonno macnihii sidaasay ka dhigan tahay waa qaybka labaad waxaa aad ula yaab leh ilaahi subxaanahu watacaala awalu aayatin min kitaabihi fi suurati albaqara yaa wuxuu leeyahay alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin kitaabkan asigaa ilaahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay laa rayba fiihi asigaa shaki kuma jiro oo inuu ilaahay xaggiisa ka sugan yahay wax shaki ka jooga ma ah ko midda laba hudan lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsada waa ku filan yahay oo wanaag oo dhanna waa u xaqiijinayaa xumaan oo dhanna waa ka reebaya adigana waxaad leedahay waxaan wax ka raadinayaa meel aan asiga aanan ahayn walidaalika nin baa wuxuu yiridaa
oo gaal ah wuxuu yidhi markuu soo islaami rabay bu wuxuu yidhi asbaabta aan ku soo islaamay waxaa iigu yaabadneed buu yidhi kutub badan baan akri buu yidhi maktabad baan ku jiri jiray marka nin kastoo kitaab qorabo markuu kitaabka bilaabi wuxuu leeyahay war kitaabkaygan haddaad akhtaa ku aragtid gafafyaal badan ama ay qalamkii meel kale igala aado ama sidaan u malaynay si kale ila noqoto walaalow iyo cudurdaar wixii khalad aad ku aragtayna iga astur buu ku leeyahay kitaabkan qur'aanka ah oo la tarjumay markaan akriyana waxaana ku arkay buu yidhi awalkiisa laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiina taxaddi weyn weeyaan wax uu shaki ah ama laablaab ee kuma jiro inamaa huwa hudan lilmuttaqiina sidaas baa ilaahi subxaanahu watacaala leeyahy ayb sidaas oo kale ilahi wuxuu leeyahy aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun muhtadi ilahay ninka ku magacaaba waxa weeyaan isku soo aroori oo waa nin noloshii adduunyadii aakhira la isku sii weeyaan marka taa yaa heli karo aladiina aamanuu dadka iimaankii helay walam yalbisuu iimaanahum bidulmin iimaankoodana shirki aan ku darin ulaa'ika lahum اlamnu dadkaas aaminnimay adduunyada kuleeyihiin wahum lmuhtaduuna ayagaana hanuunsan oo jidka dhabta ayagaa qaaday baa ilaahi subxaanahu watacaala u leeyahy wahum muhtaduun ayb kaba soo tag mashruucan asiga ah ilaahay diinta adyaanta wuxuu usoo dejinaya sideedaba in bani aadamka lagu hado haddii dadka iyo caqligooda laysu dhaafo waxay gaarsiinayaan qofkii inuu xayawaanka iska caabudo ninkii inuu guursado ninkii ka xoog badan inuu iska disho ninkii ka xoog badan xoolihiisa inuu qaato saasay gaarsiinaya waanu wada ognahay waxa dhacay sidaa daraaddeed baa ilaahay ambiyada uu soo diray waxaa loo soo diray bani aadamka in lagu hadaa loogu talagalay walidaalika markuu ilaahay subxaanahu watacaala fii suurati alancaam sideed iyo toban nebi ilaahay markuu tiriyey oo ambiye ah yaa waxaa lagu yidhi dalika huda allahi yahdii bihi man yashaau min cibaadih midkaas ayaga iyo jidka ay qaadeen waa hanuunkii ilaahay ouna ku hanuuninaayo ninkau doono walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun haddii ay macnaha dadkaas jidkaas ka leexdaan oo ilaahay qufan ahayn tala ay ka qaataanne waxaad ugu bishaaraysaa camalkay qabanayen o dhan inuu ka buray baa laleeyahay sidaasoo ilaahay haddana wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina aataynaahum alkitaaba waalxukma waalnubuwa dadkaas ambiyada oo aan soo tixnay waa kuwa xugumka aan siinay risaaladii iyo nebinimadaan siinay baa ilaahay uu leeyahay fain yakfur biha haaulaa'i faqad wakalnaa biha qowman laysuu biha bikaafiriin ambiyadaas iyo ku-xugumkaas iyo hanuunkaas la soo dejiyey hadday dad ku kufriyaanne dad baa qaadanaya oo diinta islaamka adiga haddaad ka baxdid adiga un baa dhib ku qabo mooye wax mashaakil oo diinta ka soo gaaraya ma jiro fain yakfur biha haaulaa'i faqad wakalnaa biha qowman laysuu biha bikaafiriin waxaan u wakiilanaynaa dad aan shareecada islaamka aanan ku kufrinayn markii lasoo wada haddana ilaahay u yidhi subxaanahu watacaala ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadih nebi moxamed baa la yidhi adiga waxaad qayb ka tahay mashruucaas weyninka badan ee ambiyada dhan ay soo socotay aad qayb ka tahay jidkaas raac layidhi ulaa'ika aladiina kuwaas kuwa weeyaan hada allahu ilaahay uu hanuuniyey fabihudaahu muqtadih hanuunkooda ku raac ulaa'ika aladiina hada allah ayb marka mashruucaas waa jiray mashruucaas wuxuu ka soo bilowday nabiyullaahi aadam maalinkii la abuuray ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha sidaas u jiraya walidaalika hadda bal u fiirso ilaahay markuu nebi aadam iyo xawa u abuuray ee jannada laga soo bixinay waxaa layidhi qaala ahbitaa minha jamiican faimaa yaatiyannakum minii hudaa faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa waa tilmaantii lasoo siiwa dardaarankii ilaahay uu soo siiya waxaa layidhi jannadii maadaama aad dabi gasheen ma astaahishaana ka baxa layidhi horta markaad laga soo bixiyaa waxaa layidhi bacdukum libacdin caduwun alayidhi horta qaala ahbitaa minha jamiican bacdukum libacdin caduwun bal daadada adinkoo cadow iska adin carruurtiini waad aragtoo muslim iyo gaalo faasiq iyo mu'min taqi iyo maxaa faajir a loo kala baxaya ma hesii karaan dadkii marnaba waa isdagaalayaan markaasaa ilaahay wuxuu ku yidhi dardaarankiisi faimaa yaatiyannakum minii hudan hadduu hanuun aniga xaggayga idin yimaado oo rususha iyo kitaabkii laysoo hagaagi waayaan faman itabaca hudaaya ninkii hanuunkaygaas raaco falaa yadillu jidka toosan ka dhumi maayo walaa isqaa dhibna arki maayo
marka waxaanu ogaanay ninkii waxyiga ilaahay iyo kutubta ambiyada ilaahay soo dejiyey jamiic alajyaal hadday qaadato oo hadda annaga noogu dambaysay kitaabka nabi maxamed alayh salatu salaam ilahay noogu soo dhiibay ninkaas mana dhumaayo oo jid fiican uu ku taagan yahay dhibna adduunyada arki maayo horumar iyo guul iyo barwaaqo buu ku gaaraya marka bal u fiirso nebi aadam markuu la soo diray oo adduunya la soo diray baa la yidhi fa ima an ya'tiyannakum minii hudan faman ittabaca li suuratu taha weeyaan sidaas oo kale waxaa ilaahay u tilmaamay oo ambiyadan u soo dejin jiray walaqad katabna fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarisuhaa cibaadiya asaalixuun haddana ardadaa waxaa ku dhaqmayo oona dhaxlayo oo guushaas gaaraya waxa weeyaan dadka ambiyada jidkooda raacsan kuwaas baa gaaray ayib marka sidaa daraaddeed yaa nebiga waxaa ka mid ahay istiftaaxiyadiisa markuu khudbo akrinayo ama meel inuu hadalka soo jeediyo ou doonaya nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu dhihi jiray ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh ilaa an yaquula man yahdi illaahu falaa mudila lahu waman yudlil falaa haadiya lahu nebiga markuu hadlayo uu meel maxfala ama khudbe uu ka jeedinayo wuxuu ku bilaabi jiray man yahdi illaahu ninkii ilaahay hanuuniyo falaa mudila lahu waman yudlil ninkuu ilaahay dhumiyana falaa haadiya lah wax hanuuninaya ma jiraan sidaa daraaddeed ilaahay kitaabkiisa maadaama hanuunkii saas ugu dhamaystiran yahay waxaa ceeb ah oo aanan sax ahayn inan nidhaahdo annagoo muslimiin ah nidaam kale aan raadsanaynaa oo aan horumar ku gaaraynaa oon guul ku gaaraynaa barwaaqo ku gaarayna haddii aan idhaahdo ilaahay kitaabkiisaan meel weyn ugu dhacnay ceeb iyo wax lama arkaan ahaan ka sheegnay macnihi saasay tahay ayib midda labaad haddii aan idhaahdo dimuqraadiyaan annaga qaadanayna annagoo muslimiin ah oo aan isku xukumayna ayadoo ceebtii hore u soo sheegnay ay ku sugan tahay ba haddana waxaa jira waxay noqonaysaa taqliid acmaa lilgarb waxa weeyaan reer galbeedkii oo la raaco reer galbeedkii oo indhan la-aan loo raaco wax allaale waxay la yimideenoo khusuusiyaadkeedii lagu raaco annagana waxaanu ognahay shareecada islaamka waxa lagu ijmaacsan yahay waxaa ka mid ah shareecada islaamka waxa lagu ijmaacsan yahay waxaa ka mid ah inay naga reeboon tahay an nakuuna taabiciina ligayrina dad muslimiin ah inay raacaan ummad kale oo hanuunkooda hanuun ay ka raadiyaan shareecada islaamka ama banaano walidaalika bal u fiirsa nabiga calayhi salaatu wasalaam fiima saxa canhu wuxuu ihi man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ninkii qoom isku shabaha ayuu ka mid yahay kaa waxaa looga hadli jiray ninka muslimka waxaanan banaanayn qaab dhaqameedka gaalada ay u dhaqanto ama madaxasay u jartaan dharka siday u xirtaan siday wax u cunaan siday wax u socdaan in laysku raadiyo laysku dabayo oo ayaga lagu daysado shareecada islaamka min kabaa'ir dunuub ay ka mid tahay dembiyaasha waaweyn waana dharkii oo la libista ogow waxyaalahay madaxa ku xiranayaan siday madaxa u jaranayaan dharka ayaga gooni ay uleeyihiin oo muslimiinta iyo dadka ay u kala soocan yihiin ninka sidaa u dhaqmo waxa weeyaan waa nin shareecadii islaamka meel weyn ugu dhacay liannahu waxaa loo diidaa waxay tahay ninkii gaaladan kor ahaan isugu ekeeyo waxaa laga cabsanaa inuu hoos ahaanna ugu ekaado maadaama daahirka aad ka shabahday baatinka inaad ka shabahdid aa imaanayso marka taas haddaanan la ogolayn oo ninkii gaalka ahay in laysu ekaysiiyo aanan banaanayn maxay kula noqon kartaa nin gaale wuxuu isku xuguntanay nidaam asiga ou dhigtay inaad soo qaadatid adoo muslim eh maxay kula noqon kartaa gaalkii lagu yiri dharkaasan waxba dhigaynin dharka asiga siduu u libistay iyo sidau u dhaqmo ma isku shabahi kartid lagu yiri inuu nidaam asiga ou dhigtay oo xalaal iyo xaaraanba asiga uu ka qaadanayo in laga soo qaato maxay kula noqon kartaa waxaan banaanayn weeyaan bal ogow nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu ummadiisa u sheegaa waxay kamid tahay oo diintaynin ilaahay u yidhi in ambiyadii kale diintooda wax ka xaqasan miyaa jira nabi maxamed diintiisa markii lasoo dejiyey wixii dhan waa la joojiyey waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin baa ilahay u yidhi ninkii diinta islaamka waxaanan ahayn raadiyo waxa weeyaan ilaahay kama aqbalaayo qiyaamana waa khasaaraya
bal adiga waxaan kaa codsanayaa inaad caqligaada ku laabatid oo meeshii lagu yidhi ambiyadii diintoodii lagu macamal fali karo oo diintii islaamkaa timid oo nasaxday inay xaq yihiin unbaa la rumaynayaa laakiin laguma dhaqmi karo haddii ambiyadii diinteeda waxay ahayd la diiday ma waxaad malaynaysaa in lagaa ogolaanayo nidaam gaalo ay samaysatay oo ilaahay diintiisa lagu cariiri gelinayo inaad qaadatid in lagaa ogolaanayo inay kula tahay su-aashaas waxaan jeclahay inaad jawaab rasmiga ka bixisid sidaa daraaddeeda nabi maxamed alayh salatu slam maalmo kamid oo yidhi cumar bin khataaba awraaq uu la yimid oo kutubtii reer bani israa'iil qayb kamida ay ku qoran tahay markaasuu akrin bilaab ilaahi rasuulkiisiiw kitaabaan noo soo arkay buu yidhi aan kugu akriyo markaasuu nebiga wejigiisa dhan waa doorsoomay cumar bin khataab markaasu wuxuu yidhi ilaahi rasuulkiisa maxaad u caroonaysaa buu yidhi waxa weeyaan haddii hanuunku sugan tahayne hanuunkayna aan haysanan hanuunkoodii baan ku darsanaynaa wixii xunna waa ka leexanaynaa markaasuu nebiga aada u carooday buu wuxuu yidhi haddii nabiyullaahi muusa low kaana nabiyullaahi muusa xayan lama wasicahu ila itibaaci hadduu noolaan lahay salaam yidhi markaasuu cumar bin khataab markuu arkay nebiganu aada u dhirfay bu wuxuu yihi raditu billahi rabban wabilslaami diinan wabimuxamedin sala allahu alayh wasalam nabiyan warasuula marka waxaa la ogaaday in ambiyadii diintii xaqooda lagu soo dejiyey oo dhaqan loogu talagalay xataa la joojiyey wax gaalo ay samaysatay oo shareecada islaamka ka hor yimaaya oo ka hor imaanayo oo fisqi iyo faqsi iyo bakti oo dhan ay ku dhex jirto inuu yidhaahdo nin muslim waa lagu xuguntami karaa waa lagu socon karaa inuu yidhaahdo macnaheedu waxay tahay shareecadii islaamka ahayd annaga guulku gaari mayne gaaladaasaan dabaguclaynayna macnihii saasay ka dhigan tahay bal u fiiriso ilaahay wuxuu yidhi nabigiisa calayhi salaatu wasalaam latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidirاacin xataa low dakhaluu juxra dabi ladakhaltumuuh qaaluu faman alyahuud wالnasaara qaala faman idan wuxuu nabiga uu yidhi waxaad raaci doontaan geeridii bacdigeed waxaad raaci doontaan dadka idinka horeey taaka iyo xusul baad u raaci doontaan hadday god masaligoodle ay gasho hadday galaanna waad ka dabagelaysiin buuri bimacnaa nebigu waxaad moodaa inuu joogo maanta annaga aan joogno oo dad muslimiin ah yaa waxay ka tahay noloshooda iyo naftooda inay u horansay gaalo u daba ordi lahaayeen oo nebiga tilmaama hadday god galaan xataa waa ka dabageli lahaydeen markaasaa waxay saxaabada weydiiyeen waxay ilaahay rasuulkiisiiow yahuud iyo nasaara miyaa kuwaas markaasuu yaa kalo yay kalo yihiin marka taa waxaan ka fahmnay inay ummadda nabi maxamed ay jiri doonto fii aakhiri zamaan ummad aan karaamad lahayn aan diintoodii ku dhaqmaynin ee ulajeedadooda inay gaal daba ordaan oo ay wax ka raadiyaan oo dilli inay ziyaadsadaan mooye wax kalaan aan lahayn walidaalika ilahi wuxuu uri walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin bal ciziga haddii aad tiraahdo wax haddii lagu dayanayo ama arrin laga qaadanayo ilaahay wuxuu jideeyey rasuulku wuxuu la yimiday mu'miniintii salafu saalix waxay qaateen intaasaa cizi iyo lagu gaari karaa laakiin munaafiqiintu waxaas wax ka garan maayaan buu ilaahay uu leeyahy ayib ilaahay kitaabkiisa wuxuu noogu tilmaamay wayuriidu aladiina yattabicuuna ashahawaati an tamiiluu maylan cadiima dadka shahawaadkooda raaca waa gaaladaas oo dhan weeyaane waxay jecel yihiin inay si fiican idinla weecdaan oy diintiinni iyo ulajeedadeedii iyo ku dhaqankeedii o dhan in idinka baabi'iyaanoo adinkoo muslimiin ah oo ummaddan in idinku daba faylaan ladinka rabay yaa waxaad noqonaysiin dayl oo ayaga daba soconay ayib marka waxaan u malaynayaa inana wax oo laga wada hadli kara aysan ahayn in dimuqraadiyaan qaadanayna haddii la yidhahda ay tahay macnaheedii annaga islaam mashruuc kaamil oon ku dhaqantama malihin midda kale annagoo karaamadeenni iyo kala dambaynteennii oo dhan ka tagnay ummaddii kale ugu tagnay bay noqonaysaa iyadani ayib waxaan jeclahay in aan inta kaaga tilmaamo marka kan bal waxa dimuqraadiyada iyo islaamka u dhexeeya intaa waxay ahayd in yaroo hordhaca laakiin bal ma dhici kartaa dad badana waxay u haystaan inay dimuqraadiyada ay tahay islaamka waxba ay u dhibayn oo labadooda la isla qaadan karo oo ay tahay laba isu adeega inay yihiin
bal marka ugu horeyso dimuqraadiya markii la yidhahdo waa loogyahay meesha la keeno qoladan gariiga la yidhahdo ay asalkoodii ka timi ulajeedadeedana waxa weeyaan xukmu shacbi bishacbi waaye shacbigii oo isxukumo naftiisana isu xukumoon ilaahayna waxna ka maqlin rasuul aan wax ka qaadanin ummad kale aan wax ugu dayanin ee asiga dhigto nolol maalmeelkiisa iyo dhaqankiisa iyo wuxuu isku hagi lahay caqiidadiisa akhlaaqdiisa dhaqankiisa shacbigii oo dhigta ayaa la yidhahda dimuqraadiya caqiidadiisii dhaqankiisii akhlaaqdiisii kulli asaa samaysanay waxaan akhlaaqday ku xun inuu leeyahay waa banaynaa waa diidayaa waxaan akhlaaqday ku fiican inuu leeyahay waa banaynaya sidaan waxaan waa xaaraam waxaan waa xalaal saasay leeyihiin ayib taas hadday dimuqraadiyada ay tahay islaamkii maxaa tahay asagane bal labadaad faqradaad keliya le kala ogow haddii aad sidaas tidhaahdid qofkii bani aadamka ahay inuu wax asiga dhigan karo wuxuu rabana ku xalilayo wuxuu rabana uu ku xaaraantinimaynayo hadday macnaheedii tahay waxa weeyaan macnaheedii inay haadaa yatanaaqadu maca asli diin اlislaam bal maca asli kuli diinin samaawiyin maxaa yeelay siyaadadii iyo sulطadii iyo caqiidadii iyo tashriici kulli oo dad bani aadam gacanta loo geliya macnihiisaasay noqonaysaa ilaahay subxaanahu watacaalane ma ogolo intaasoo dhan inay qof bani aadan ay kula wadaagsata ma rabo oo ilaahay wuxuu leeyahay alaa lahu alkhalqu waalamru ilaahay uumista asaa iska leh asaa khalqiga abuurtay siduu khalqiga u abuurto wax la abuuray aysan jirin you amarkiina leeyaho waxa lagu dhaqmayo waxa caqiidada ah waxa akhlaaqda ah waxa xugumka ah asaa iska leh ma ogolo ilaahay subxaanahu watacaala siduusan u ogoleen in bani aadan ay wax la abuuraan iyo asna xugumkaas iyo wax in lala wadaagsadousan ilaahay u ogolayn bal ilaahay wuxuu leeyahy in ilxukmu ila lilahi amara an laa tacbuduu ila iyaahu dalika addiin اlqayim bal u fiirso in ilxukmu ila lilahi xugumka waxa loo xuguntamayo ama nidaamka ama qaanuunka ama ku dhaqanka xugumka ilaah baa iska leh markaasaa waxaa layidhi amara an laa tacbuduu ila iyaahu waxaa la ogaaday xugumka ilaahay oo loo xuguntamo wuxuu qayb ka yahay juzء min cibaadati اllahi tabaaraka wa tacala sidaa daraadee ilah wuxuu ihi amara an laa tacbuduu ila iyaahu dalika diin اlqayim baa ilahay uri sidaas waa diinta toosan marka waxaanu ogaanay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan ogolayn in asiga waxa ahayn xugum laga qaato marka waxayba isku diidayaanba dimuqraadiyada waxa waay shacbigii wax qorto oo asiga isu dhigto o isu xalilo o isu xarimo ilaahayna wuxuu leeyahay taxliilka iyo taxriimka anaa iska leh walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi اlkadiba ina aladiina yaftaruuna cala allahi اlkadiba laa yuflixuun waxaa ilaahay uu leeyahay afkiina ha ka dhihina waxaan waa xalaal waxaana waa xaraam ha dhihina adinkoo ilaahay ku been abuuranay maxaa yeelay xaaraam iyo xalaal ilaahay baa dhihi karo cid kaloo dhihi karta ma jiraan marka haddii aad adiga aaminsan tahay dimuqraadiyada inay tahay barlamaaniyiinta inay kulmaan oo lasoo dhiga dastuurkii markii lasoo dhiga in lagu dhaqmo macnihi waxa weeyaan kitaabkii ilaahay xugumkii ilaahay dhaqankii ilaahay uu noo jiday oo dhan baa dariishada laga tuuray hadda waxaan ku tusinaya calaa sabiil mithaal dadka hadda soomaalida barlamaanka u matalo oo meesha u joogo habeen iyo maalin mas'alada baa lagu murmaya oo laleeyahay quwaad ajnabiya ama askar ajnabiya ma keensan karnaa wadankii markaasaa waxaa leeyahy duwal saf alawal ma ku jiraan mase ma ku jiraan marka nin kastaba waxa weeyaan wuxuu leeyahay dastuurkeenna wuxuuna siinaya jaartarka aan dhigana wuxuu leeyahay marka la dhihi maayo war shareecada islaamka ah inay gaalo ay timaado nooc kastaba ha yeeshatee dad muslimiin ay hubka ka dhigto oo ayada ay macnaha gacanta ku hayso amarkii nahyiga ay haysato ma banaanta horta waxay yidhi ma aragteen maya macnihi waxa weeyaan barlamaankiya wax annaga noo hagay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogolo siduu ilaahay yiri walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay gaalada uma yeelin dadkii mu'miniinta inay awood ku yeeshtaan korkooda awoodka weyn ma jirto in la yidhaha gaalada hubka hanaga dhigto oo annaga hana xoogaysato oo waxay rabto hana amarto ee hana dullayso waxa weeyaan wax ka hadlayo shareecada islaamka waxaa maxay ka qabtaa
ummadda waxay ku ijmaacsan tahay nin gaal ee madax muslimiin uma noqon karo, qaalina uma noqon karo, hal meelna arrintooda kama maamulin karo. taas macnaheedu waxay noqonaysaa gaalkii oo muslimiinta dullaysto. ilaahayna wuxuu leeyahy walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin. ma dhici karta nin muslim ah inuu gaal amar ka qaato. walidaalika dadka muslimiinta ah oo gobolyaalo badan oo gaalo xukunta degan waxa weeye way dambaabayaan inay karaankooda ay bixiyaan, awoodooda ay bixiyaan, ay jihaadaan ilaa ay ka xornimo ay ka gaaraan. waajib ku noqonaysa maana in gaal hoos yimaadaan oo la xukumo oo wixii raba lagu fuliyo. taas sharcan islaamka ma banaano. marka dimuqraadiyadii waxa weeyaan annagaa kitaab degsanayno, kitaabkaasaan isku xugumayna macnaheedu waay. islaamkana waxa weeyaan ilaahay baa xugumka iyo kitaabka iyo see dhaqankiisa asaa idin samaynaya, adinkana addoomo ugu noqday ugu dambeeye. bal u fiirso ilaahay wuxuu leeyahy falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusallimuu tasliiman. ilaahay baa wuxuu leeyahy waxaan ku dhaartay rabbigaada sidaas ku dhaaranay iimaan laga heli maayo ilaa ay shareecada islaamka ay ugu soo xuguntamaan oy qalbigooda raalli ku noqdaan. hadday wax kala qaataan, hadday raalli ku noqdaan iimaanka laga heli maayo. alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaguut. yani bal nabi maxamedow ka waran baa layidhi qolada sheeganaya inay adiga ku rumeeyeen, maca daalika waxaan islaamkii aan ahayn uu xuguntamayo. ma dhici kartaa kuwaas inay muslimiin ay noqdaan baa layidhi? ma dhici karta. waa jawaabti. taaguut waxaa la yidhahdaa wixii shareecada islaamka ah kasoo hor yimid oo dhan oo kasoo haray baa la yidhahdaa. marka nuqdada koobaad oo shareecadii islaamka ay isku diidayaan oo farqi jawhari ah waxa weeyaan in shareecadii islaamka ay tahay ilaahow waxoo dhan laga qaato, dimuqraadiyadana waxoo dhan bani aadamka ha laga qaato. labadaasay ku kala tagteen marka ugu horreyso. markasay ku dhici kartaa inaad tidhaahdid ilaahay sharcigiisaan qaadanaya iyo sharcigii bani aadamka dhigan qaadanaya laba kulmi karta ma ah. waxa oo waadix ah oo aan laga murmaynin weeyaan. ayib waa farqiga jawhariga ah ee gaalada iyo islaamnimada u dhaxaysa weeyaan. farqiga labaad waxaa weeyaan waxaa u dhaxeeya aafatu taswiya almutlaqa bayna jamiici annaas. dimuqraadiyada iyo islaamka waxyaalaha farqiga weyn oo u dhaxeeya waxaa kamid eh dimuqraadiyad dadkao dhan waa siman yihin, gaalo iyo muslim farqi kale ma laha. nin majnuuna iyo nin miiran farqi kale ma laha. nin faasiq ah iyo nin mu'min ee farqi kale ma laha. nin caaqil ah iyo nin doqon ee farqi kale ma laha. dumar iyo rag farqi kale ma laha. dimuqraadiyada dad oo dhan way siman yihin. walidaalika markii doorasho la gaaray oo la gaaro waxaa leeyahy 18 sano ninkii gaaro o dhan ha soo baxo. hadduu nin faasiq yahay, hadduu faajir yahay, hadduu dumar yahay, hadduu rag yahay, hadduu caqli xun yahay, hadduu nin toosan yahay, hadduu nin cilmi leeyahay, hadduu jaahil yahay, kulli waa siman yihin. taasna waxay diidaysaa sunan ullahi fi lardi bay ka hor imaanaysaa. oo waa maxay? ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kitaabkiisa kariimka bal u fiirso afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun. ilaahay wuxuu leeyahay muslimiinta ma waxaan ka dhigaynaa dadka mujrimiinta oo gaalo ah, xukumkiina maxaa uu yahay baa laleeyahy maa lakum kayfa taxkumuun. sideed waxaa arrintaas u xukminaysaa? macnaha nin muslim ah iyo mujrim ma sinaa karaan. ayagana waxaa laleeyahay gaalo iyo muslim waxaa cawdaynta waa u siman yihin. waxaa kamid ilaahay uu leeyahay am najcalu aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati kalmufsidiina fi lard am najcalu lmuttaqiina kalfujaari. ilaahay wuxuu leeyahay ma waxaan ka yeelaynaa dadka ilaahay rumeeyey oo camalka saalixa ah qabsaday kuwa mufsidiinta oo ardada fasaadinaya maan iskala mid dhigayna? bal u fiirso dadka waxay u kala baxaan nin mu'min ahoo saalixa iyo nin mufsid ahoo faajir ah. ilaahay wuxuu yidhahdana am najcalu lmuttaqiina kalfujaari, dadka ilaahay ka cabsado iyo kuwa faajiriinta amaan simayna. dimuqraadiyada waa siman yihin intaasoo dhan. ilaahay wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna. dadka wax yaqaano iyo dadka jaahiliinta ma siman yihin? markaa fiiri islaamka markii la rabo in muslimiinta loo doorto ninka madaxda ama ninka mas-uuliyada loo doorayo dad lagu magacaabo ahlulxalli waalcaqdi, dad lagu magacaabo
dadka ugu cuqaalsan, dadka ugu aqoon fiican, dadka ugu taqwo badan, dadka ugu salaaxnimo badan, dadkaasaa u dooranay. liannahu nin fiican oo caaqil ah oo taqi oo ilaahay ka cabsana hadduu qofka u doorto, qofkii wanaagaas asna la unbuu dooranaya. laakiin haddii la yidhaahdo ninkii waalnay iyo ninkii majnuunka ay kii faasiqa ay hawada doortaano, hadda waxaanu ognahay aakhiru zamaanta dadka xun baa badanay. macnihii waxa weeyaan ninba wuxuu dooranay ninka asiga la shaakilaho la nooca ayuu dooranay. waxaa imaanaysa ummaddii inay faasiqiintii iyo faajiriintii jaahiliinta inay xukumaan. annagu waxaanu ognahay ninkii madaxweynihii maraykanka clinton la dhihi jiray, dadka wuxuu ka helay dadkii shuduudka lagu magacaabi jiray. shuduud waxaa la yidhahdaa kuwa raggana isu guursada gooni ahaan, dumarkana gooni ahaan isu guursadaan. yaa wuxuu yidhi aniga waan ogolaanayaa dadkaas inay askarta ku biiraan, xataa waan ogolaanayaa oo dawladda iyo shaqaalaheeda ay kamid noqdaan. sidaasuu cod dheer ku helay. macnaha waxa weeyaan dimuqraadiyada islaamka waxay ku kala tegsan yihiin. islaamka dadka ma sinno, oo nin faasiq iyo nin fiican ma sinno, nin caaqil ay nin majnuun ma sinno, nin caalim ay nin jaahil ma sinno. taas baa waxa weeyaan dimuqraadiyadana maalinkaas codka waa loo soo wada baxaya. walidaalika waxay noqonaysaa in xataa ninka riwaayadaha jiro oo kale inuu soo baxay aad arkaysa. sababta waxa weeyaan ummadda dhan waa wax dooranaysaa qaybkaas oo dhan kamid ah. ayb marka waxa weeyaan ha u malaynin islaamka sidiisaba in macnaha dadkii ma sinaan kara maaha. sinaan waa la ogol yahay, laakiin hal nooc weeyaan. dadkii waxa weeyaan in midab lagu kala baxo, in tanaadnimo ama jinsi ama loon lagu kala baxo shareecada islaamka ma ogolo. laakiin in lagu kala baxo sifaat oo xaggii iimaankii, xaggii taqwadii, xaggii cilmigii, xaggii garaadkii, ummadda ma sinaan karto. waxaa aad u yaab le baa laleeyahay dadka wax ka qora waxay leeyihiin reer galbeedka shay kasta takhasuska way aaminsan yihiin ilaa markii suldada kore la imaanayo mooye. takhasuski waa maxay? maanta ma haddii la yidhaahdo wasiirka arrimaha dibadda hala doorto, haddii la yidhaahdo waxaa la dooranaya nin arrinta siyaasada uu ku orgolo wax ka yaqaan. haddii la yidhahdo wasiirka beeraha hala doorto, waxaa leeyahay beeraha cilmigooda yaa yaqaan. haddii dhakhtarnimo hala yidhahdo yaa cilmigan ka soo baxay. waxay ogol yihiin wixii kale takhasusaadkoodii oo dhan waa wada ogol yihiin. laakiin waxaysan ogolayn markii doorashada weyn la joogane waxay ahayd in la yidhaahdo war yaa ummaddii maslaxadeeda iyo masiirkeeda yaa garanaya. in la yidhah bay ahayd oo la yidhah dadkaas yaraa doorashada ka qayb geli karo, intaan kale ma geli karta in la yidhah bay ahayd. tii dhihi maayaana waxaa leeyahay midii ugu akhtarsaneed oo ugu muhiimsaneed waxaa laleeyahay ummaddii oo dhan ha ka qayb gasho. shaqadii hoose markii la isu dhiibaana waxaa leeyahay takhasuskeeda u haysto. bal u fiirso, waxaanu leenahay annaga maadaama howl kastoo la qabto takhasus ay u baahan tahay oo aqoon iyo garaad iyo daryeelis ay u baahan tahay, yaa waxaan leenahay waxaa ka muhiimsan markii madaxweynenimada, markii wasiirka la dooranayo, markii qaadiga la dooranayo, waa inay dadka dooranaya ahaadaan dad takhasuskaas iyo cilmigaas iyo karaankaasle inay ahaadaana la doonaya. marka intii haddii laga waayo macnaheedu waxay noqonaysaa tanaaqud baan ku dhacaynaa. marna aan leenahay waxa weeyaan waa lagama maarmaan takhasuskii iyo qofkii dadkii ma sinno. markii nidaamkii guud la samaynaana aan leenahay maya, dadkao dhan waa inay sinaadaano, ninba codkiisa waa inuu la baxaa. marka waxaanu leenahay shareecada islaamka iyo dimuqraadiyada hal jidna kuma kulmi karaan, meelna isagama imaan karaan. kanna waa waxyigii ilaahay oo la raaco, kanna shaydaanku waxyigiisa la raaco, labadaasay kala tahay. marka layskumana dari karo imaa inaan muslimiin quman aan noqono jidkaas aan qaadano, imaa inaan gaalnimadaas dhinac laga raaco. waxa weeyaan annaga hadda ilaahay waxaan ka dhibayna mala. wuxuu ilaahayna leeyahay wain tatawallow yastabdil qawman gayrakum uma laa yakunuu amhaalakum. haddii adinkoo dhan aad islaamkii ka laabataan ood gaalnimadii aad wada raacdaan, ilaahay waxaad ka dhibaysiin malaha. waxa weeyaan qoom kale u ilaahay la imaanaya, diintiisana u gargaarto, xaqana muujiyo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. sidaa daraaddeed yaa waxaanu leenahay dimuqraadiyada islaamka iyo ayada meel shaqa iskumana laha. waxaadna ogaan doontaa muxaadarooyinka soo socdaan kaaga sheegi doonaaye. waxaanu ognahay waxyaalaha doorashada lagu yimaadabo
waxaa weeyaan waxaa soo saara dadka xoolaha leh, dadka iclaamka sida idaacooyinka iyo saxaafada leh, waxa weeyaan waa rishwa, wax un lacag la qaybiya lagu soo baxa. ummad iyo maslaxad loo haayo ma ahe, nin kasta wuxuu soo sharaxa ama doonayo ninkii beri asiga maslaxadiisa inuu wax ugu qabanayo u malaynayo. waxaanu ognahay annagoo aan meel kala aadin, doorashada had jirtaan Embagati ka dhacday iyo Nairobi oo kale, in ay boqolaal qofood ay lacag bixiyeen, qaar $200 ay bixiyeen, qaar 300 mar kastabana sawdka uu helay ninkii ugu dambeeyay ugu lacag badnay yaa lagu kala qaadanay. marka waxaad ogaataa inay waxaas dimuqraadi ay noqon karin. caalamka waxa ka jirana sidaas oo kale waa, markaad Mareykanka iyo Faransiiska aad samaysid, aad fiirisid sharikaadka waaweyn oo dhaqaalaha leh iyo ciday raba iga soo saaraan, markaasay madaxdii ayaga ay soo saareen waxay leeyihiin waxaad noo jidaysaan nidaamka annaga noo suuragelinayo inaan ka faa'iidaysano, haddii kale hadhowti dambe waxaad ogaataa ciidan adiga ahayn inaan soo saari doono. marka ma dhici karayso, dadka ha iska tilmaamaano mar badan ha sheegtaana inay dimuqraadiyad ay tahay waxa keli oo ummadda horumar lagu gaarsiinayo. laakiin waxaanu leenahay xaqa ma dahsoono. annaga muslimiin haddaan nahay, xaggii caqiidadana sida ayna dimuqraadiya inaan u qaadan ayna u banaanayn, yaa xaggii xukumka, xaggii dhaqanka, xaggii akhlaaqda, xaggii xukumkii kulli oo dhan aynan ka qaadanay waajib tahay. laakiin haddaan idhahdo caqiidadana muslimiin aan ka nahay, dhaqankana dimuqraadiya aan ka nahay, hawshiisa yahuudda ilaahay uu ku yidhi afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdi, yaan ku dhacaynaa. taas waa inaan iska ilaalino, wax suuragal ena ma aha. sidaa daraaddeeda waxaan kaaga sheegi doonaa furuuqda haddana usii dhexaysa. hadda 2 farqi aan kugu sheegay oo dimuqraadiyada iyo islaamka, xaggii xukumka iskama laha, xaggii bani aadamkoo la sinana isku mid ma ah. labadaas farqi baan kaaga sheegay. furuuq badan baan kugu sheegi doonaa inay shariicada islaamka ahayn ayna banaynaynin qof muslim ah inuu ilaahay kula tartamo, in xaggii caqiidadii, xaggii xukumkii, xaggii kastaba intii daliil aan kuu sheegi doona haddii ilaah yidhaha subxaanahu watacaala. sidaa daraaddeed anigu waxaan leeyahay, haddii adiga aadan suuragal ahayn inaad xaqii islaamka aad ku dabaqdid, ummadii shar ha u horkicin oo dimuqraadiyadan iyo waxaan la sheegayo, walow dad islaamiyiin isku tilmaamayaba habeen iyo maalin ay ku qaylimayaan, adiga dankuuma aha. waana nidaam islaamka loogu hor imaanayo, aanan ogolayn. haddii ay dhacdo qolo inay la timaadane, adiga haddaadan ka reebi karin ha uu gargaarin. wallahu aclam. sala allahu wasalam ala